السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود كسودة هذا channel كنا سيال كميديا وضبطين وين ما أنت وحاي كليهين بيش عالم كوسود ويتلابد وقاضي مدحوين فرماتشو مع الدولة دكو قصبين أقون سلطو أحمد مدوبي والبين ديرا هذا ياكو مقلي دونتان دولة الروس كو حفظ دير كو حكومتي سركال كتر سنعيد مدى مريكان كا روس كي تركيا oo dib u dhigay wadahadladii Liibiya magacaygu waa maslax nasiib fadlan hadaan u cusubtahay channelkan subscribe inoo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo maadsan fadlan daawadayaal waxa inaga xasuusinaa inaad ka soo dhiiban kartaan fariimihiina iyo ra'yigiina saaxiibada Soomaaliya beesha caalamka ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu 14 bishan ku dhawaaqay in la qabanayo shir dhexmara madaxda dowladda federaalka madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaasha gobolka Banaadir iyadoo ku sheegay tallaabo muhiim ah oo xoojinaysa iskaashiga dhinacyada qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu baaqay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka inay ka faa'iideystaan fursadan isla markaana ay ka heshiyaan arrimaha ay kamid yihiin doorashada ka dhacda dalka oo dhan qoraalkan ayaa lagu yiri waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada joogtada ah ee loo galay wadahadalada dib u heshiisiinta iyo tanaasulka ka dhaxeeya madaxda siyaasadeed waxaana sidoo kale soo dhaweynaynaa baadigoobka lagu jiro in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed iyadoo ayna rabshado dhicin lana adeegsado garashada xaaladda jirta iyo wada dhamaansho ay ku jirto arinta Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku sheegay inuu ku casuumay madaxda dowlad goboleedka iyo gobolka Banaadir inay ka soo qayb galaan shirka amniga qaranka kaasi oo looga hadli doono arrimo quseeya amniga iyo doorashooyinka soo socdo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay qoraal ay soo saartay ku ogolaatay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha Jubbaland labada sano ay ka bilaabanaysa markii la doortay waxaana sidoo kale ku xigtay warqad lagu casuumay inuu ka soo qayb galo kulanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho saacad kadib warqadda dowladda ayaa sidoo kale waxa qoraal ay soo saartay maamulka Jubbaland oo ay ku diideen aqoonsiga labada sano arrimahan ayaa imaanaya xilli soo dhowdahay muddaxleedka dowladda hadda jirta kalena waxa jiro culays soo kordhaya oo beesha caalamka ku saaraysa dowladda inay la xajooto maamul goboleed dalka oo ay diidan yihiin haddaba maxaa ku qasbay dowladda dhexe inay aqoonsato maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe arrimahaasi ayaa waxaan ka wareysanay Maxmed Saabir dhowr arrimood oo isbiirsaday tan ugu horeysa waxa weeye cadaadis xoogan oo kaga yimid bulshada caalamka khaasatan dowladda Mareykanka qof walba uu ogyahay in xiriir xoogan ay la leedahay dowladda Farmaajo oo waliba labada sano u dambeysay ka waday howlgal culus koonfurta Soomaaliya dagaalka lagu la jiro al-shabaab sababta labaadna waxa weeye hiisigii dowladda Farmaajo oo ahaa in isbedel balaaran ay ku sameyso gedo oo dhaboobi waayay taas oo ay keentay mid horta waxa weeye cadaadis kaga yimid bulshada caalamka dowladda Mareykanka iyo wadamada kale oo taageero Soomaaliya waxay soo saareen warbixin dhowr jeer oo ay maaragtay ku ambaareenayaan dowladda sababta ay u geysay ciidamo ay u geysay gobolka Gedo sababta saddexaadna waxa weeye waqtigii oo aad gaabis u ah waqtigii doorashada ayaa lagu jiraa hadda marka waqtigii oo gaabis ah oo hiigsigii dowladda oo dhaboobi waayay sababtaas soo dejisaan u malaynaya in villa Soomaaliya ay soo saarto warbixintan maxkamadda ku taala Ruushka ayaa 16 sano oo xarig ah ku xukuntay sargaal hore uga tirsanaa ciidamada badda Mareykanka Paul Whelan ayaa lagu xiray hotel ku yaala Moscow 18 bilood ka hor kadib markii lagu helay xog sir ah oo dowladda Ruushka ay gaar u ahayd maxkamadda magaalada Moscow ayaa ku heshay dambi ah inuu galay xog aanan la shaacin oo sir u ahayd dowladda Ruushka Whelan ayaa sidoo kale haysta dhalashada UK Canada iyo Ireland ayaa hore u dafiray eedeymahan wuxuuna sheegay inuusan haynin xog ku saabsan dowladda Ruushka dowladda Ruushka iyo Turkiga ayaa dib u dhigay wadahadalada ay ka yeelanayaan arrimaha Liibiya sabab la xiriira khilaafka ka taagan gulufka ay xukuumadda Liibiya ee taageerada ka haysata Ankara
ku doonaysa inay dib ula wareegto gacan ku haynta magaalada xeebeedka muhiimka u ah sirta oo ay haatan maamulaan ciidamada maamulka bariga dalkaasi iyadoo la haysta taageerada militariga Turkiga ayay xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya waxay toddobaadkii la soo dhaafay horumar ka sameysay dagaalkii ay kula jirtay ciidamada maamulka bariga dalkaasi ee uu hogaamiyo Khalifa Haftar oo taageero ka haysta dalka Masar Imaaraadka iyo Ruushka jirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa baajiyay safar axad uu ku tagi lahaa magaalada Istanbul si uu la kulmo dhigiisa Turkiga laakiin sarkaalka Turkiga ayaa sheegay in wadahadal aan toos ah ay sii wadayaan khubarada labada dhinac guud ahaan taasi ku soo gabagaboonayna wararkeena maanta warkaan waa ka xiganta kun doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah